musharaxa isaga ee hore isagoo u tartamay kursigiina uusan banaanaan oo si sharci uusan ku banaanaan mar labaad inta si dhuumasho ah ku yimid inuu ka abaabulo waa dambi heer qaran weey waxaan caawa halkan ka cadeynayaa oo u sheegaya beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed shacabka reer Galmudug hadii ay ku nool yihiin Galmudug iyo hadii ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho iyo qurbaha intaba dawladda Galmudug waa lagu soo duulay waa lagu soo shufteeyay waxa ku soo duulay oo shufta ahaan ku soo galay magaalada Cadaado dawladda federaalka ee Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay u xil saaratay ummadan inay hogaamiyaan siyaasadooda iyo hadii Ilaahay ku roon yahay horumarkooda inay ka shaqeeyaan loo xil saartay oo madaxweynaha ka yahay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed laakiin hadda macnaha inuu shufta noqdo dharka u soo dhigtay ninka la yiraahdo Mudane Xasan Cali Khayre iyo wiilkii ahaan jiray wariyihii Al Jazeera Fahad Yaasiin oo u soo dhar dhigtay ummadda reer Galmudug hadii ay joogto Cadaad inuu ku baabi'iyo magaalada Muqdisho inuu ku baabi'iyo magaalada Cadaad caawa dhib baa ka taagan dhibkaasna waxa geysay dawladda federaalka ee Soomaaliya